مشرع عبد الرحمن محمود دورة oo sharacan golaha wakiilada Soomaaliland way weheliyaan gudoomiyaha dhalinyarada iyo aqoonyahanka beelaha ka soo jeeda koonfurta iyo bariga gobolka Sanaag ayaa shir sharaa'id ay ku qabteen magaalada Ceergabo kaga digay in dad iyaga dega bariga gobolka Sanaag la dulgeeyo cudud military si ay isu diiwaan geliyaan iyadoo ayaamihii ugu dambeeyeen ay ciidamo ku sii qulqulayeen bariga gobolka Sanaag taasina ay sababi karto iska horimaadyo hor leh oo ka dhasha ciidamada la geeyay iyo shacabka deegaankaasi waa sida ay hadalka u dhigeen waxayna xukuumadda ku eedeeyeen inay dabada ka wato iska horimaadyo hor leh si aan isu diiwaan gelin shacabka ka soo jeeda deegaanada koonfurta gobolka Sanaag waxaana iyagu arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlaya hadaladoodii ka mid ahaa halkan waxaan ku qabanaynaa waa shir jaraa'id oo ku saabsan diiwaan gelinta gobolka Sanaag iyo nabadgelyo darro ku soo fool leh oo ay asbaab u yihiin ciidamada la geeyay degmada Dhahar iyo degmada Badhan dhexdooda ciidamadaas oo ku baxay sifa aan la iskula ogeyn gudiyada nabadgelyada iyo dadka deegaanku dadku waa nabad dalkuna waa nabad maato iyo dad horumarin iyo in wax loo qabto u baahan maanta in dagaal loo raro doonimeyn haddii dawladdu muddo kordhin doonayso ha tagto baarlamaanka ka kordhiso waxa aan idin sheegay haddii aan laga hortagin waxa ay dhalin doontaa wax boqolaal sano dambe qaata waxaan kaloo u baaqayaa ciidamada ka soo baxay xagga Puntland iyaga laftooda in ay ilaaliyaan nabadgelyada oo waxa la doonayo iyo waxa la sameeyo waa in la kala garto way dadka in lagu dul dagaalamana ma aha wasiirka madaxtooyadana hadduu muddo kordhin dawladdiisa u baahan yahay ha ka raasado commissionka iyo baarlamaanka dad masaakiin dhiigooda muddo lagu kordhin karo musharax baan ahaa dadku inay isdiiwaan geliyaan baan doonayay inaan cod ka soo baxnaan doonaynay waxaanad moodaa wixba inay meesha ka baxday laakiin codkii aan rabnay inaan ku soo baxno qorina ku soo baxo doonamay diyaarna uma yihiin halkaana inaan iska sharaxo xildhibaan ka noqdo dhiig dad aan xildhibaan ku noqdo oo diiwaan gelin bambeena aan musharax ku noqdana ma rabo haddaba halkan waxaan uga digayaa wasiirada madaxtooyada iyo wasiirka gaashaandhigga Cadami oo runtii u yaqaana ciidamada oo halka u diray inay yihiin jundullaahigana waynu naqaanaay waa kuwa meel kastaba galaba laakiin ciidamada meesha loo diray ciidamo jundullaahiya ma aha waa ciidamo la doonayo inay wax soo dilaan iyagana la soo dilo runtii waxaan la soconaa maanta Soomaaliland in xarumaha agoomaha lagu hayo ay farabateen oo meel la kala dhiga la waayo imkana waxa la doonayaa in kuwa hor la agooma laga dhigo diiwaan gelinta aan rabnay si nabadgelyo la isu diiwaan geliyo in dagaal loo bedelo aad baan uga xunnahay waanaanu ka soo horjeednaa waanaanu cambaaraynayna halkan waxaan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo aan ugu talagalay in aanu saxaafadda dadka ku ogeysiino dibta laga wado bariga Sanaag taas oo ay wadaan niman ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadda oo ugu horeeyo wasiirka gaashaandhigga Cadami isaga oo raba inuu halkaas ka abuuro carqalad iyo buuq dalkayga annaga waa nabad dadkiisuna nabad bay ku nool yihiin diyaarna waxay u yihiin in ay diiwaan gelinta galaan xildhibaanada baarlamaanka iyo doorashada baarlamaankana ay si xor ah oo xalaal ah ku doortaan cid ay iyagu markaa ay doonayaan marka waxaanu halkan baaqaanu ka direynaa waxa weeye xukuumadda iyo wasiirada iyo ciidamada la wadaba waxaan u direynaa inaan ummadaas nabadda ah degan diyaarka oo ah inay diiwaan gelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ka qayb galaan doorashada kaarka ay qaataan inaan la carqaladayn la dhibin haddii ciidan la geeyo kaarna cid lagu ma khasbi karo doorashana cid lagu ma khasbi karo taasina waxay keenaysaa deegaanka iyagaas oo horeba loo baabiyay oo la yiri wasiir Cadami baa wax laga weydiinay in maantana dib loo baabiyay ciidankaas oo ay mas'uul ka yahay madaxweynaha ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan hore noogu iman intuu xilka hayay oo maanta noogu horeyso waanu soo dhaweynay si sharaf leh baan u soo dhaweynay maanta anagu marti noo yahay laakiin inuu ciidamo galbeedka nooga soo rarto oo bariga geeyo Sool iyo Sanaag oo uu codka halka ka iman doonana uu diidayo inuu saameeyo maadaama uu markii hore yiri gobolada Sool iyo Sanaag waa minority marka waxaanu leenahay ciidankaas khatar bay ku yihiin deegaankaas waa deegaan nabada waa deegaan u diyaara inay diiwaan gelinta qaataan laakiin si xabad iyo qori iyo hanjabaad ku codayn maayaan annagaana ka soo horjeedno barxad maxamuud gadi telefishinka caalamiga ee Soomaali News TV magaalada Ceergabo.